Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida jaclada ka joogtaan halkan waa Rugta TV waa naga daawatan waa mar kale barnaamijyadii fanka iyo suugaanta iyo arrimaha bulshada fanaanka caanka ah Maxamed Saciid Biiki ayaa waxa soo wajahaya dhaliilo kala duwan oo dusha looga tuurayo dad fara badan oo ay asxaab yihiin iyo dad ay fanka ku wada jiraan ayaa ka soo hadlay sidoo kale fanaanada caanka ah ee Khadra Silimo ayaa si kulul uga hadashay weerartayna fanaanka waxaanay ku tilmaamtay nasiib darro waxaana sheegtay in fanaankaasi uu gabi ahaanba fanka ciibiyey waxaana tiri miyuu ilooway markii aan heestii ahayd xamar dhaxal uma helin aan wada qaadnay waxaa kaloo ay fanaanadu sheegtay in Maxamed Saciid Biiki waxyaabo noocaasi aan laga filin laakiinse hadda uu u muuqdo mid gabi ahaanba xaydaabkii goostay waana nasiib darro in dad maati ah ama dad shacab ah oo qorax ama dhibaato ay dul hoganaysa uu ku jeesjeeso sidaan ogsoonahay maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada waxaa haystay muuqaal uu baraha bulshada soo geliyey Maxamed Saciid Biiki taas oo dadku siyaabo fara badan u arkeen fanaanada caanka ah ee Khadra Silimo ayaa markii ugu horeysay waxay barta ay ku leedahay Facebook ay ku sheegtay in ay aad uga xun tahay sidoo kale fanaaniin kale oo ka mid ah fanaaniinta fanka Soomaaliyeed ku jira ayaa gabi ahaanba iyagana iska fogeeyay eedaasi waxaana sheegeen in ay bari ka yihiin oo aanay la qabin maadaama ay fanka ku jiraan fanaankana uu yahay fanaan Soomaaliyeed oo fanka ku jira laakiinse nasiib darro tahay in uu dhaleeceeyo ama uu dad qarax ku dhintay uu ku jeesjeeso fanaanada caanka ee Khadra Silimo ayaa ah fanaanada runtii taageero badan ku leh bulshada Soomaaliyeed waxaanay fanaanada iyadoo ka faa'iideysanaysa taageeradeeda iyo shacbiyadda ay ku haysato bulshada waxay sheegtay in ka shacab reer Somaliland ahaan iyadu aanay la qabin ka fanaanad ahaanna ay aad iyo aad uga xun tahay taasina ay tahay axmaaqnimo runtiina ma aha in qof walaal Soomaaliyeed ah ama qof Muslim ah dhiiggiisa lagu farxo hadalla aan qabanna ama runtii cadifadaysanna lagu sheego fanaanada ayaa sidoo kale waxaa hadalkeeda ka muuqda in gabi ahaanba ay iska fogeysay waxa uu Maxamed Saciid Biiki uu dadka Soomaaliyeed qaraxii ku dhintay magaalada Muqdisho ex control afgooye ay dadka badan ku la'deen halkaas oo maalmihii ugu dambeysay lagula tacaalayay xaaladooda oo maalmahan ugu dambeysay haddaba dadka dhaawaca culus ba loo qaaday dalka Turkiga halkaas oo ay xukuumadda dowladda Rajab Tayyip Erdogan ay diyaaradaha u soo dirtay gargaar ah sidoo kalena la qaaday dadkina halkaasi la geeyay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa runtii aad iyo aad uga xumaaday qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa iska ahayd maalmihii ugu dambeysay mid xaaladeedu ay degan tahay laakiinse hadda uu soo baxaya qaraxaasi ayay dad fara badan ka naxeen waxaanay Soomaaliya hadda waajahaysay xasilooni iyo nabadda waarta taas oo madaxda dowladda federaalka ay markasta si xuduud ugu jireen in ay dowladda iyo dalkaba hagaajiyaan kastaba haatee Maxamed Saciid Biiki ayaa muuqaalkiisii siyaabo fara badan loo fasiray الفنان محمد سعيد بيكي ayaa ahaa fanaan aad iyo aad loo jecel yahay taageero badanna ku lahaa bulshada Soomaaliyeed laakiinse taageerada iyo wanaagga loo hayo fanaanka ayaa gabi ahaan hadda waxay u muuqataa in ay meesha kasii baxayso الفنان محمد سعيد بيكي ayaa lagu xaman jiray inuu yahay fanaan cunsuriya laakiinse hadda dadka qaar waxay qabaanba in fanaanka waxyaabihii lagu xaman jiray ay soo baxeen oo hadda ay baraan ka timid si kastaba haatee fanaanka ayaa taageero badan waayi doona waxaana soo waajihi doonta dagaal dhanka fanka ah taas oo gabi ahaanba aan fanaanka shacbiyad heli doonin waxaanu eegi doonaa الفنان محمد سعيد بيكي xaaladiisa meel ay ku dambeyso iyo meesha ay mari doonto waad ku mahadsantahay daawadayaal meesha aad nagala socotaan waa Rugta TV fadlan subscribe noo saara channelka furta like gareeya waa asxaabtiina la wadaaga sina share gareeya si asxaabta kale ay u aragto waxaana leenahay baahda Rugta TV runtii aad baan uga xunnahay hadallada ka soo yeedhay Maxamed Saciid Biiki waxaanu taageersanahay Khadra Silimo iyo dadka ka soo falceliyay ee ka hadlay Maxamed Saciid Biiki waxaana leenahay fadlan haddii Soomaalinimadu aanay idin deeqin muslimada hana deeqdo oo hal iska daayo caadifada